horta naya qalad weeyaan qalad weyn inaan ninkayga ka hadashid ninkayga soo aflagaadaysid sababtoo ah aniga waa iga hadli kartaa laba naagaas waa nahay waa iska kaa celinayaa laakiin ninkayga maalintaa soo geshid adduunka dhan baa qarxayo qalad weeyaan inaa mataqaanaa afaarihiisii dhan ba isku taabatay sababtoo ah horta kow Soomaaliya idinka ma ogidiin laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego inaan anigu nin leeyahay okay ninaba caadi ahaan ninkayga suu u jecel yahay hadda subaxii naagtan xun oo aniga igu mashquulanaya fiiri ninkayga wuxuu ii keenay ma arkaysaa maya ma arkaysaa hurdada aan ka soo kacay weli hataa wajiga ma dhaqanin flaankan buu ii keenay kow xisaabnaya ku raaxayso kow haye labo ku raaxaysanaya fiiri saddex waa fresh abini waxaan way cayn baa afkayga soo baxay shan haye waxa kale iska daaye wuxuu ogyahay inaan anigu planka jecelahay fiirinaya markaas aniga ninkaygii leedahay uu foolxu yahay maxaa ku ogyahay foolxumadiisa anaa ku jecela fiirinaya iga dhamow waa iga badbadatay beenta dhaaf ah adiga iska daano adiga niyo dhabandidaha warniyo meesha ha ii kala kacdano drama jecelihiin Soomaalida aamus idhageysiyaray mar dambe afaahaygi soo gelin waa ogaay inaan ka xun tahay jacaylkayga jacayl ma qabtid adiga maxaa kaaga jiro waxa anaa isku soo iibiyey waa ogahay aan baa hayso laakiin aniga nin isku ah adiga maxay ceelanaysaa soo ceelanaya iga dago waxaan iga dago sabab dina balaaya waxaan waxba aan ka duuri karo Soomaaliya iga raali ahaada arrintaasina naagtaas oo rabina iska garbaasho anigu way ogtihiin jacayl iyo farxad iyo wanaag unba igu barateen marka iyo qosol unba igu taqaaniin laakiin maanta naagtaabaa iga caraysay naag ma jirta war adiga aamusniyo